wasiir haddii aan ku socdo arrintaas socdaallada waxaa jirta warqad la siiyo dadka safraya oo ah ka fogeydida cudurka dabcan dadku waxay aad uga hadalhayeen maalmahan la isweydiinaya sababta Puntland 68 bay markii hore ahayd hadda 50 ka dhigtay iyadoo Hargeysa 12 laga helay xabarna la sheegay in inta ka yar laga helay intaas waxay ku dhacday haddii aan la horta saan ka warhayo xamar waa kambaniyo ayaa lagu siiyey contracts sida officialka ahna waa $30 weeye annagu waxaanu hawshan bilownay ka hor intii aan xamar iyo Somaliland midna aanay hawshan aanay bilaabin wax walibana waxay ku xiran yihiin quality-ga supply-ga iyo chemical isticmaalista nooca ay yihiin annagu marka waxaanu hubinay inay xagga quality-ga aanu priority siino marka quality-ga siisana dabcan qiimuhuna kor buu kacaya taas marka laga soo gudbo waa aqoonsanahay waana yaqiinsanahay in qiimuhu ku sareeyo dadweynaha waxaan noo qorshaysan berito waa khamiis oo maalin bisha tahay 15 laga bilaabo in qiimuhu 35 uu noqon doono November haddii la gaarana waxaanu qorsheynaynaa inuu hoos uga sii dhici doono haddii lahayno marka yes markii hore maxaa uga badateen waxaan uga badnay sida aan kuu sheegay waa quality-ga alaabta aan soo iibsanay sababtoo ah alaabta waa la soo iibiyaa markaad soo iibsanaysid qalab maaha waa kiimikadii lagu baarayay coronaviruska waxay leedahay range waxay leedahay kuwo jaban laakiin aan sensitivity lahayn yani aan marka xamri Hargeysa qalab idinka jaban bay haystaan dabcan waa dhici kartaa anu ma rabo inaan iyaga hadda ka bixiyo waxa ay haystaan inaan comment ka bixiyo ma rabo laakiin waxaan kuu ogahay uun inaad xaq u leedahay taa qaaliga ilaa taa jaban ilaa intaa u dhaxaysa kaad iibsato baa qiimahaysana la socdaa quality-giisana la socdaa yaa idin maamula marka idinka shirkad gaar ah aysan wasaaradda annaga hadda wasaaradda soo saarta wasaaradda shahaadooyinka saarta wasaaradda ka shaqeysa kiimikada aan ugu talagalay dadka masaafuriinta waa la soo iibiyaa la soo iibsanaa laakiin wasaaradda soo iibsata iyada shaqaalaheedu ka shaqeeyaan iyada shahaadada soo saarta wixii lacag dadweynaha laga qaadana si sharci wasaaradda maaliyadda ayay ku dhacdaa annagana ma soo marto oo maalintii wasaaradda maaliyadda qaada annagana ma soo marto waayahay laakiin waa lacag dadka danyarta iyo dadka kale aad ugu badan waa qirsannahay taas inay ku badan tahay waa sababta aanu u sii jabinayno haddana u sii jabinayno haddii lahayno laakiin weli ma gaarsiisna Hargeysa oo 12 laga yaabo inay gaarsiiyaan waa dhici kartaa mustaqbalka laakiin waxaad ku xisaabtantaa Hargeysa sida ay wax u maareeyaan iyo meelaha ay supply-ga ka helaan waxa laga yaabaa inay ka duwan tahay anagu saanu supply-ga meelaha ku helaan meelaha u maareeyno marka ma rabo inaan iyaga si gaar ah comment-gooda uga bixiyo laakiin anaga waxa xil naga saaran yahay dadka inay helaan shahaado qiimo jaban ku yeelan